assalaamu calaykum saaxiibka dhabta ah waa midka markii aad dhacayso aan ku saamaxin inaad dhacdo oo ku qabtaa qofkii haysta saaxiib wanaagsan noloshiisa waxaa ka buuxsamaysaa firfircooni iyo farxad iyo liibaan haddaba ha xifdisto saaxiibkaasi noloshu way socotaa sidii horena ma ahan mana ahaan doonto dadkii runta badnaa way tageen oo waa la waayey dadkii sirta xifdin jirayna way yaraadeen xaasidiintiina way bateen haddaba samayso saaxiib wanaagsan tolow saaxiibka wanaagsani waa kee yaa la yidhaahdaa saaxiib haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada cidlada hadda ka cabso inay saaxiib kuu noqdaan dad xunxun balse ogsoonow inaysan jirin dunidan qof dhammaystiran daawade qofka aad saaxiib ka dhiganayso iska fiiri ma qof wanaagsanba mise waa qof xun kana fiiri dhanka dhaqanka dabeecadda aqoonta saaxiibtinimada miyuu xiriiriyaa mise waa laba cisho un bis saaxiibka wanaagsan sideen ku gartaa astaamihiisuse waa sidee waa sidaan soo socotaa saaxiibka wanaagsan waa midka dhaqankiisu wanaagsan yahay oo had iyo jeer wanaagga ku fara adigana xumaantana kaaga diga saaxiibka wanaagsani waa ka mar kasta ku xusuusiya ilaahay cabsidiisa is-hor istaagga ilaahay kaagana diga qabri iyo qiyaame saaxiibka wanaagsan waa ka ku bara dulqaadka deeqsinimada iyo samirka mar kastana dadka kale aan kaaga sheekayn xumaantooda saaxiibka wanaagsani waa kan had iyo jeer ka muuqda meelaha khayrka sida masaajidada madaarista iyo goobaha cilmiga iyo meel kasta oo wanaag lagu haayo saaxiibka wanaagsan waa kan kugula taliya danahaaga kuguna dhiirigeliya wanaagga iyo wixii dani kuugu jirto saaxiibka wanaagsani waa kan kula farxa marka aad faraxsan tahay marka aad murugaysan tahayna ku sabarsiiya marka aad caraysan tahayna ku qabta saaxiibka wanaagsan waa kan hadalkiisu ku dhiirigeliyo kuna soo jiito dareenkiisu